inan xilligii Haarun Rashiid aad u qurux badnayd baa dagaal la qaaday lagu soo qabsaday marka Basro Saylid haweenka lagu yibiyo ayaa la keenay intii barga hablaha ma la iibin jiray hablaha lagu soo qabsaday dagaalka waa la iibinayay way oo adoomay noqonayay way dabeetana rag badan baa lacag dul dhigay nin baa intuu dhageystay ragii ayuu lacagtii ay bixinayeen markii halkii ugu sareysay gaadheen ayuunbuu laban laabay ya dabeetana waa taa looga hadho uu ka haystay guri buu geeyey dabeetana gurigii markuu geeyey ayuu yidhi halkaa iska deg 2 toddobaad iyo wax buu iman waayey iyadii baaba tiri ninkii aniga soo iibsaday muxuu igu iman waayey maalintii dambuu yimid wuxuu ku yidhi kuma baan soo iibsan inaan anigu ku imaadee inaan nimankii wixii kugu soo haliiliyay ka badbaadiyo ayaan ku soo iibsaday iminkana xor baa too reerkiini waa tagi kartaa inantii baa waxay ku tiri may raaciyo magaaladayadii maadigeyn meede waan baqaynaa buuri say tiri anigu haddii aad magaalada iga geyso duleedkeeda inaga hadhaan magaaladaba inta soo dareeriyaan halkaad joogtaan idinku keenaya sidee sabab boqorkii dadka la dagaalamaysan baan iga dhaabay keligay baan u dhalay dabeetana duleedku way raaceen oo duleedkii magaalada isagiyo dhowr nin oo kale kaga tagtay dabeetana odaygii intii ay ka soo maqnayd buu ooyayo de ilmo dhiigi ka timid oo inantaasoo quran lahaa ayuun bay u gashay odaygii baa yaabay aabu de manuu filayna soo noqoto way uga sheekayso waxay tiri suuqaasaa leeyay iibkaygiyo sicirkaygaa dhacay nin baa sidaa iibsaday dabeetana ninkii sidaasuu sameeyey oo meeyey ninkii magaalada duleedkeedu isagiyo niman la socda ay gu sugayaan magaaladiiba intay soo dareertay baa nimankii la qaaday dabeetana magaaladii baa la geeyey nimankii wax wal iyo dahab iyo wixii kaga baxay afarlaabkeed baa la soo siiyey markay soo dhaqaaqayeen ayuunbay shandadeedii basraad baa la odhan jiroo qabsatay odaygii baa yidhi aabba basraad xaggee tegaysaa waxay ku tiri aabba adigoo gabadha ninkaa ma ka hadhi layd odaygii baa ku yidhi maya way raacday way sidii bay caadi bay dabeedna marka dambe isku guursadeen dabeetana ninkii xayraan buu noqdo uu kacay inantii basraad baa waxay tiri si aad lacagtii u hesho aniga mar labaad iibiyo haddana soo iibso aniga intaad iibiso haddana soo iibsabay tiri dabeetana oo maxaan sameeyaa suuqay dhig lacag si lacagtaa qaado ku shaqayso haddana dib soo iibso lacag